weli Itoobiya waa mid gubanaysa oo dagaalo xoogan oo aan kala joogsi lahayn ay ka soconayaan dadka naftooda la baxsanaya oo u kala jeesta wadamada dariska ah iyo gobolada aanay xabadu ka socon iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo rusheeyay deegaanada ay xoogga ku haystaan xogaga Tigreeda ee TPLF. si aan u gadagalno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda Itoobiya, walaalahay saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibo badan. Mahadsanid. in ka badan 1,000 qof oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolada waqooyi ee maamulka Tigreeda TPLF, iyadoo dhaawac kumanaan kale uu gaarayo, kuwaasi oo goobaha caafimaad ay qaadi la'yihiin, kuwana daryeel xumo caafimaad iyo goobaha caafimaadka oo la gaarsiin la'yahay ay u geeriyoonayaan. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dagaaladan u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya oo garabsanaya kuwa maamul goboleedyada dalkaasi iyo maamulka Tigreeda ee TPLF oo isugu jiraan ciidamada Liyu Booliska Tigreeda, ciidamo u abaabulan qaab qabiil iyo ciidamo dowladda ka goostay in ay ku dhinteen ku dhawaad 2,000 oo dhinacyada dagaalamayay ah, walow dhaawacu tiradaasi ka badan yahay. dagaalkan toddobaadkii saddexaad soconaya oo dhinacyada dagaalamaya aysan guulo waaweyn oo la taaban kara ka gaarin, haddana dagaalku uu soconayo ayaa ciidamada dowladda Itoobiya ilaa iyo haatan waxa ay qabsadeen 3 degmo oo muhiim ah, iyagoo sidoo kale duqeeyay caasimadda Tigreeda ee Maqalla, halka dhinaca kale ee xogaga Tigreeda la soo sheegayo in ay laayeen ciidamada Itoobiya cutubyo ka tirsan isla markaana duqeyn la eegteen deegaanada Amxaarada. dhinaca kale, qaxootiga dalka dibadiisa u baxsanaya ayaa sii kordhaya, iyadoo dalka Suudaan ay gaareen 3 toddobaad ee u dambeysay ku dhawaad 50,000 oo qaxooti ah, halka dadka qaarna ay u qaxeen deegaanada qowmiyadaha kale ee Itoobiya. waxaa socda waan iyo mas'uuliyiin madaxda Afrika ay u magacaabeen xalinta dagaalka Itoobiya ka soconaya, iyadoo horey aysan natiijo uga soo bixin wada hadallo horudhac ah oo dhinacyada dagaalamaya la isku horkeeni rabay.